wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay ku qabteen seminar looga hadlayay qorshooyinka magaalooyinka iyo qurxintooda waxaana seminaarkani ka soo qayb galay isla markaasina ka faa'iideysanayay madaxda maamulada degmooyinka ee Jubbaland iyo waliba hay'adaha baartiga la wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ugu horreyn waxa seminaarkani ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay ujeedkiisa agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Maxamed Wali ama saddexaad oo qabanayno waxa looga hadlayo waxa weeye qorsheynta magaalooyinka wada shaqeynta wasaaradda howlaha guud iyo degmooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale qurxinta magaalooyinka iyo barnaamijka yani mas'uuliyadka wasaaradda howlaha guud ay leedahay intaas buu ku saabsan yahay iyo wasaaradaha ama institutionada kala duwan ee stakeholders ama shareholders wasaaradda howlaha guud leh barnaamijka marka waa nooc wacyigelin iyo iska warqab iyo mataqaana in la fahmo qorshe roolka iyo responsibilities ka leedahay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta iyo different stakeholders kala shaqeynayo oo aragtaan degmooyinka ama meeyaradii dad mathalaya inay joogaan guddiga gobolka mataqaana inay joogaan dowlad goboleedka Jubbaland shaqo kasta oo la qabanayo waxa soo galaysa arrimo oo human rights ka la xiriiro shaqo kasta oo la qabanayo waxa soo galaysa wax la xiriiro environmental iyo social safeguard oo wasaaradda environment-ka oo kuwa ay joogaan waxaan rajaynaynaa the rest of the day barnaamijka intuu sii socdo waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa hay'adda UN Habitat oo noola joogo ninkan Xasan saaxiibkeena oo runtii ka caawisa dowlad goboleedyada barnaamijyada urban planning iyo urban profiling iyo barnaamijyadas aad iyo aad uga caawiso barnaamijkan dowlad goboleedyada inta badan waxa weeye dowlad goboleedyada cusub uu ku cusub yahay laakiin Somaliland iyo Puntland iyo barnaamij soo shaqeeyay oo soo hirgelay wax fara badan laga soo qabtay way waxaan rajaynaynaa marka in annaga ka Jubbaland ahaan ka state ahaan inuu noqdo barnaamij hirgalo oo wada shaqeyntaas ay kor u sii kacdo oo stakeholders ka annaga aan coordinate garayno waxyaabaha la xiriira infrastructure-ka urban planning la xiriiro si magaalooyinkeena ay u qurxanaadaan ay u dhismaan wadaagtii magaalo aan master plan lahayn oo mataqaana qorshe magaaleed uusan jirin wax shaqeynaya ma lahan hadii magaaladan Kismaayo saad ogtihiin jidadkii baa rabaa in la dhiso jidadkii baa la dhisayaa oo hadda saan rajeynayno muddo 2 bilood gudaheeda magaaladan Kismaayo waxa qorsheysan 33 kilomitir oo within the city ah rabaa in la dhiso hadda feeska koowaad baa ogtiin in la xayeysiiyay oo haddii Ilaahay yiraahdo 28 bishan deadline-kiisa uu yahay oo dhacayo muddo 2 bilood gudaheeda marka waxa bilaaban doona dhismihii wadada arkiisaan qiimaha soo hormarto wasaaradda dhabarka hor dambe marto ilaa dhagax jibiska baa hadda waxay bilaabanaysaa within 2 months haddii Ilaahay yiraahdo inta kaliya ma ahan ogtihiin magaaladan waxa ka bilownay barnaamijyo wadooyinka la xiriiro hadda UN Habitat muddo laga joogo 2 isbuuc ka hor waxa la xarig jaray midnimo meeshan refugee returnees iyo IDPs dadka farada badan Soomaaliyeed ee iska dhibana farada badan la dejiyay oo access aan lahayn wasaaradda howlaha guud hadda barnaamijkan hadda waxa weeye dhul wixii yahay cid kasta oo qosayso oo hadda waxa weeye wax ku yeelan doonta waa inay ka qayb qaadataa wasaaradda cadaaladda ka mida midda dibadejinta ka mida qorsheynta arrimaha gudaha degmada bulshada iyo agaasimayaasha waxa weeye qorsheynta ee dowladda laakiin waxaan hadda ku sheegi doonaa markii la sameeyo qorshaha noocan oo kale ah qorsheynta magaalooyinka oo kale ayaa ka wada shaqeyn cid ka wada shaqeynaysa ay noqonaysaa waxa chairman ka noqonaysa ama hogaaminaysa nidaaminta magaalooyinka mar walba waxa hogaaminaysa Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane wararka telefishinka Hon Cable magaalada Kismaayo.